السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaal kusoo dhawaada janalkeena mras. waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan dhalinyarada. inta aanan barnaamijkeena u gudbin waxaa lagaa codsanayaa si sharaf leh inaad noogu sheer garayso, aadna subscribe noo saarto janalkeena mras. barnaamijka aan rabo inaan caawa aan ka hadlo waa dhiirigelinta dhalinyarada. dadka naga waaweyn ee siyaasadda dowladda ku jira waxay sheegaan 75% inay yihiin dhalinyarada. marka maxaa loo la-yahay doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed, rag iyo dumarba? waxaa loo baahan yahay in laga dhiidhiyo waxyaalaha dadka qaarkii ay ku laabkacsadaan, sida qabyaaladda iyo waxyaalaha kale. ma samayn karnaa isku duubni? ma samayn karnaa inaan dalka wax ka bedelno? waa samayn karnaa, laakiin waxay u baahan tahay kalsooni iyo ad adeeg. kalsooni iyo ad adeeguna wuxuu ku yimaadaa dulqaad. inna lagu awrkacsado ma aha qabiil, inna lagu awrkacsado ma aha waxyaale aan loo baahnayn. maanta adduunkan aan ku sugannahay 70% dhalinyara hoggaanka u qabata. waddankan aan ku sugannahay dad baa dhistay, waan ku soo qaxnay. waxaana loo baahan yahay in aan ka barano dad waddamadii aan usoo qaxnay ama aan nimaanay, in aan wax ka baranno. maanta dalalka aan ku noolnahay ee Yurub iyo America waxaa la sheegayaa in dhalinyaro Soomaaliyeed ay isku dilayso, tooreeyo isku dilayaan, ay dhibaato isku hayaan. jeelalkii badankoodii ay dhalinyaro Soomaaliyeed u badan yihiin, gabdhaheenii badankoodii ay dayacan yihiin. haddii qurbihii aan usoo ordnay oo loo baahnaa inaan cilmi aan ka kororsano, waxay noqotay in anaguna la caayo. dhibaatada maxaa la dhahaa, ajaanibtii baa dhibaato noo keentay, ajaanibtii baa saan lagu naco. laakiin haddii aan isbedelno oo aan isku toosnaano, shalay maxaa la dhahaa, for example dadka tahriibayaashaan ka soo qaadayaa, soo tahriibtay, dhibaataa soo martay, qarijeex baa soo martay, qurbaa timid. haddii qurbaha timid waxaa loo baahan yahay shalay dadkaad ka soo tagtay inaad wax u qaban karto, wax tari karto, aad caawin karto, aad dalkaagii wax ka bedeli karto. inaad meesha iska fadhisa ma ahan, ama ceer aad sugto ama aadan wax baran. haddaadan shaqaysanaynin wax baro, haddaadan wax baranayninna shaqayso, dalka wax geli. waxaa waaye dalkeena khayraad badan oo leeyahay, waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. hadhihin aniga deegaan hebelaan kasoo jeedaa. dhul walba oo Soomaali ku nooshahay waa tegi kartaa. waxyaalahan goonigosadka ee maxaa la dhahaa goboleysiga la sheegaayo iska ilow. Soomaali baa tahay, meeshaad doonto waad tegi kartaa, waa ku noolaan kartaa, qofkaa xigta ma lahan. dhalinyarada waxaa loo baahan yahay inaan lagu awrkacsanin. waxaa loo baahan yahay in aanan la dhihin qabiil hebel iyo qabiil hebel, anoo saas anoo saan soo reer hebel saan ii yeeli karaa. dhalinyarada waxaa loo baahan yahay inay ayagu isdhiirigeliyaan, inay ayagu isku imaadaan, iskaashadaan. jaamacad Soomaaliya ku taala ee Muqdisho ku taala wax ku baratay,
haddii aad wax ku baratay ma ahan micnaheedu inaadan waxba aqoonin. waxaad tahay ninka ugu aqoonta badan, waxaad tahay nin dhulkiisa wax ka yaqaana, waxaad tahay nin dhulkiisa wax ku bartay, waxaad tahay nin dhulkiisa maanta difaacan kara ee wax ka samayn kara. yaa lagugu owrkacsan anigoo reer hebel ah iyo reer hebel ah. waxaa la leeyahay dalka waxaa ka dhici doonta doorasho qof iyo cod ah. saansaanteedu ma muuqato, laakiin siyaasiyiinta yuusan idinku owrkacsanin. siyaasiyiinta waxaa loo baahnaa haddii ay rabaan inay dalku ay doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo inay gobollada tagaan, xafiisyo furtaan. dalka aan ku noolnahay tuulo walba iyo meel walba waxaa ka furan xafiis. xafiiskaas oo xisbi walba uu ku leeyahay xafiis ay dadku ay ka register garaysan yihiin. sanadkii ay lacag bixiyaan, lacag 200 oo lacagtan $20 u dhiganta ay bixiyaan. dalkii waxaas ma ka jiraan? ma ka jiraan. sidee marka aniga aan rabaa anoo nin siyaasi ah oo 70 jir ahoo ama 50 jir ah inaan shacabka cod ka helo, soo wuxuu kuugu sugayaa inaad reer hebel aan isla nahay niyo reer hebel ahaan igu coday. haddii reer hebel kuu codeeyaanna meel kuma gaaraysid, waxna uma tari maysid. laakiin waxaa loo baahan yahay cod haddii aad ku nooshahay low ya cadde, waxaa loo baahan yahay inaad codkaaga qofka is leedahay qofkan baa wax tari kara. alla ilaa qofkan baan dhageystay, ninkaanaan dhageystay oo waxyaalo wuxuu sheegay ee cad ee maxaa la lahaa ee lagu kalsoonaan karo. waxaan iyo waxaan iyo waxaan iyo waxaanu sheegay. alla ilaa ninkaan wixiisu way jiraan, ninkaan wixiisu waa la rumaysan karaa, ninkaanaan dooranaya. laakiin haddaa dhahdid ninkaan wareer hebel waaye, jufada hoose isla nahay, waxaa waaye asigan taageeraya, soo jifo wax kuuma tarto, wax kuuma soo kordhinayso. waxaa loo baahan yahay in aad iskaashataan, aad ka fakarto codkaaga meeshaa siiso. berito ninkaas wuxuu haleeyo aakhiro waa lagu haystaa. taas la soco, aakhiro waa lagu haystaa. dhallinyarada soomaaliyeed meel walba aad joogtaan, xooggiina inaad isku biirsataan. ururada aad samaysateen oo ururada jaamacadahoo dhan ee magaalada muqdisho ku yaalla, waxaa loo baahan yahay hal urur oo idin mideeya inaad samaysataan. dhallinyarada ku sugan qurbaha waa inaad dalka wax tartaan, dalka aad maalgelisaan. iska daaya meelaha aa fadhisaan ee ceyrta aad qaadanaysaan. dalkan haddaa imaadeen waxaa loo baahan yahay inaad shaqaysataan, waxaa loo baahan yahay inaad wax barataan. adduunka tiknolojiyadda uu ku horumaray. malaysia maanta waa ujeedaa waxaa horumariyey dhalinyaro. waxaa lagu amray nin walba oo maleesiyaan ah ee ku sugan daafaha caalamka in ay ku noqdaan dalkooda. maalintay ku noqdeenna waa ujeedaa maanta horumarka ay gaareen. anigana waxaa loo baahan yahay dadkeenii caafimaadka bartay, dadkeenii makaanikada bartay, dadkeenii maxaa la lahaa tiknolojiyada heeraheeda kala duwan bartay inaad dalkii ku noqotaan oo dadkii wax aad tartaan. aad maxaa la lahaa flantered aad ku shaqaysaan. ma ahan inaad dalkii aad u shaqo dagtaanoo aad wax quud ka raadsataan. ma ahan adigoo shalay meeshaan joogayoo waxba aanan ku haynin haddii aad dalka tagtid, dadkii dalka joogane aad ciriiri ku gelisid, waa laga fiican yahay. guryihii aad qaali ka dhigtid, wax walba aad maxaa la lahaa cunooyinkii wax walba aad sarakac aad lagu sameeyo, aad baa looga fiican yahay. ummadda waxaa waaya dhalinyarada ee qurbaha ku nool, isku daya inaad dadkan waxaa waaye cilmigooda qaata, laakiin camalkooda ha qaadanina. nin masaari ahaa wuxuu yidhi dadku waaninaya, waxba u sheegaya, waxaa waaye kaale arag. dadku aad bay u jeclaysteen. maalinta dambe waxay ku arkeen asigoo sigaar cabaaya, hawlo kale iska wataa. markaasay dhaheen, hay maxaa kugu dhacay adigu hawshaan aa ku jirtid? markaas macallinkii wuxuu dhahay, khud cilmii walaa ta'khud camalii. cilmigayga qaado, camalkaygana ha qaadanin. marka dhalinta ku sugan qurbaha meel walba aad joogtaan, dadkan caddaanka ah cilmigooda qaata ee camalkooda ha qaadanina. camalkaaga iyo diintaada ku dheganow, laakiin ka faa'iidayso, wax ka baro. waxaad ka baratay dalkii kula noqo. ma fahantay? dhallinyaradaa la hadlayaa, brofesorada ee maxaa la dhahaa caalamka ku kala sugan cilmiga ilaahay siiyey ee soomaalida ah. waxaa loo baahan yahay dalkiina inaa usbuuciiba 2 mar xataa 2 saacadood xisad aad bixisaan oo siisaan. dhalinyarada in la dhiirigeliyo,
dhalinyarada maanta waxaa loo baahan yahay in ay ayada kor u kacaan ay wax qabsadaan maahina ma ahan in liska kiin horkeeno inaad ku fadhi dirirtaan waxyaalaan loo baahnayn wanaagga in laga shaqeeyo aa loo baahan yahay taasi waxaan u gudbinayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin anigu janalkayga waxaan u sameeyey dhalinyaradu inaan ku dhiirigeliyo dhalinyaradu inay wax qabsan karto dhalinyaradu inay kacaan haddii maanta aad dugsi sare aa kasoo baxday aada awoodin inaad maxaa la dhahaa jaamacad aa aado dugsiyada farsamada gal mechanic baro mechanic heer baad ku gaaraysaa adduunyadan aa ujeedid waxaa waaye dadka mechanicada ah baa dhisay electric baro electric haddaa baad dhinac walba ugu gudbi kartaa diyaaraddii shalay ee idlib duqaysay oo dhulka dhan baabi'isay nin electricada ka bilaaba barashadeeda technolojiyad u gudbayo heerba heersa u gaara jaamacadda maxaa la dhahaa maraykanka wax kusoo bartay aa sameeyey oo dhowr iyo 30 jira oo gabadha maxaa la dhahaa Erdogan qaba allah sharfo fahamte electricada baro waxaa waaye waxyaalaha farsamada gacantaada dhunkanaysaa gacantaada laakiin Soomaaliya 90% nursing haday barteen 70% ay barteen maxaa la dhahaa 70% ay barteen maxaa la dhahaa accounting aawe cilmigii beeraha aawe yaa 800 kun oo hektar ma ka badan aan leenahay Soomaaliya aawe cilmigii beeraha maxaa loo baran waayay geology-ga aawe yaa macdan dhulka ka buuxdo dadka noo baari lahaa aawe haddii aad nursing iyo meelo kale aad loo kala ordo ha la isqeybiyo aawe dadkii xanaanada xoolaha baran lahaa aawe dadkaasaa loo baahan yahay dhalinyaro idinkaa dalka u taliya uma taliyaan dadka 50 jirada iyo 90 jirada iyo waxaa looga baahan yahay ayaga talo wanaagsan haddii talo wanaagsan la imaan waayaanna waa in la iska gudbiyaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed isbiirsada isku soo dhawaada is jeclaada Looking at the